وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. halkan waxaan ku duubaynaa maadada xisaabta fasalada lixaad ee dugsiyada cigaal casharadooda ay sii wateen maadaama ay duruuf timid. casharkeena koowaad waxa la yiraahdaa raadinta ama mugga saddex jibaarane iyo sajibike. marka intaynaan mugga raadin waa inaanu kala garan karno saddex jibaarane iyo sajibike. labada shaxanba waa laba shaxan oo mid walba saddex dhinac leh dherer iyo ballac iyo joog, laakiin maxay ku kala duwan yihiin? saddex jibaaranuhu wuxuu leeyahay saddex dhinac oo isleeg dhererka iyo ballaca iyo joog. sidaa darteed dherer iyo ballac iyo joog laguma kala qoro. marka haddaba muggiisa la raadinayo, mugga saddex jibaaranaha qaacidada lagu helaa waxa weeye dhinaciisa un baynu saddex jeer isku dhufanaynaa. dhinaciisa ayuun baynu saddex jeer isku dhufanaynaa. tusaaleheena koowaad waxaa la yidhi xisaabi mugga saddex jibaarane dhinaciisu yahay 5 sentimitir. 5 sentimitir waa dhammaan macnaha saddexdii dhinacba mid walbaaba waa 5 sentimitir. waxaa la nasiiyay dhinaca saddex jibaaranu inuu yahay 5. maxaanu naqaanaa? furfuris baan leenahay. mugga saddex jibaaranaha waxaa lagu helaa dhinaciisa oo saddex jibaaran, macnaha dhinaciisa oo saddex jeer la isku dhuftay. mar haddii dhinaciisu yahay 5 sentimitir, mugga saddex jibaaranu wuxuu noqonayaa 5 sentimitir oo 5 sentimitir iyo 5 sentimitir oo la isku dhuftay. jawaabteenu markaa waxay noqonaysaa 125 sentimitir. kana haddaynu saddex jeer isku dhufano waa 125 sentimitir saddex jibaaran. sajibike haddaynu u nimaadno, sajibike waxaa loo soo gaabiyey saddex jibaarane eke. macnaha waa saddex jibaarane eke. isagu saddex jibaarane uu eegyahay saddex jibaarane maaha, dhinacyadiisu isma leega. dhinaca ugu dheer waxaan leenahay waa dher iyo ballac, dhinaca kalena taagana waxaa la odhanayaa joog. waaya qaacidada lagu helo mugga sajibiku waxa weeye dherarka iyo ballaca iyo jooggu mar isku dhufanayna. bal ila eega tusaalahan hadda. tusaalaha koowaad, dherarka sajibika waa 6 sentimitir, ballacuna waa 3 sentimitir, joogguna waa 4 sentimitir. waxaan leenahay furfuris mugga sajibike waa dherarka oo lagu dhuftay ballaca oo lagu dhuftay joogga. mugga sajibike wuxuu noqon doonaa ku bedel dherarkii misuu ahaa 6, ballacina misuu ahaa 3, joogguna misuu ahaa 4. 6 3 ku dhufo 4na ku dhufo waa 72 sentimitirkana saddex jeer isku dhufo 72 sentimitir oo saddex jibaaran. layliga casharkeena koowaad layligiisa waxaa layna siiyey 4 su'aalood buu ka kooban yahay. su-aasha koowaad dherarkii iyo ballacii iyo joogii baa lagu siiyey, muggaa lagaa doonaya. kuwan kaloo dhanna waa mugga sajibikana qaacidada lagu helana waa taqaanaa, oo waa dherer lagu dhuftay ballac lagu dhuftay joog. dabeedna waxa weeyaan mid saddexdaan aad isku dhufan halbeegana waa saddex jibaari. casharkeena xiga waxa weeyaan bedka barbaroole iyo bedka koorta. casharkii hore wuxuu ahaa mugga, kana waxaynu ku baran doonaa bedka. bedku waa shayga inta uu ku fadhiyo. markaynu u nimaadno barbaroole, barbarooluhu waa shaxan afar geeslaa oo dhinacyada iska soo horjeeda ay isleeg yihiin, isla markaa ay yihiin barbaro. marka labada dhinacna way isleeg yihiin, sidoo kale labadan dhinacna way isleeg yihiin. marka la iga doonayo bedka barbaroole waxaan odhanayaa un bedka barbaroole waxa lagu helaa salka oo lagu dhuftay joog. salkii waa kan, joogguna waa qotomahan, waa dhinacani joog maaha, waa dhinaca weeye, waa xariiqa ku qotoma ayaan leenahay joog. tusaalaha koowaad waxaa la yidhi raadi bedka barbaroolaha joogga qotomihiisu yahay 5 sentimitir oo salkuna yahay 6 sentimitir. salkiina waa 6, jooggiina waa 5. dabeedna maxaanu leenahay? waxaa la siiyey jooggiyo 5 iyo salkiyo 6. maxaa laynaga doonayaa? bedkiisii. waxaan leenahay
furfuris badka barbarhooluhu wuxuu la mid yahay salka oo lagu dhuftay jooga badka barbarhoole halkii salka waxaynu ku bedelaynaa 5 joogiina 6 markaynu isku dhufano badka barbarhooleyna wuxuu noqonayaa 30 sentimitir oo laba jibaaran layliga 10 labaad waxa layna siiyay badkii iyo salkii joogii iyo salkii baa layna siiyay mid walba waxa laynaga doonayaa badka qaacidada badka lagu helana waanu soo sheegnay waa salka oo lagu dhuftay jooga badka koorta koor markaynu idhaa koor waa shaxan leh 4 dhinac buu leeyahay laba dhinac oo iska soo horjeeda way kala yar yihiin waana barbaro iyo dhinaca qotomaha ku ah oo ah joogii marka badka markaynu doonayno waa inaynu marka hore naqaano qaacidada lagu helo badka koorta maxaa lagu helaa waxa lagu helaa half lagu dhuftay jooga koorta oo lagu dhuftay labada dhinac ee kala yar oo aynu kala bixinay A iyo B oo la sugayay hadduu dhinacan yahay A kanun baa B hadduu dhinacan yahay A kanun baa B labada dhinac ee barbarada ee kala yar iyo maraynu isugayno waxaynu ku dhufan doonaa jooga oo aynu laba u qaybina ayaynu ku dhufan tusaalahan leegad badka koortan ayaa laynaga doonayaa badka koortu wuxuu inoola mid ahaa half times joog times A plus B iminka joogeeni waxa u taagan xariiqa TX oo 10 sentimitir labadii dhinac ee A iyo B diina midina waa 16 sentimitir midina waa 20 sentimitir marka 16 iyo 20 keen isu geyn waa 36 sentimitir 10 laba inuu qaybin waa 5 sentimitir marka 36 iyo 5 markaan isku dhufano waa 180 sentimitir oo laba jibaaran casharkeena labaad layligiisa waxa laga doonayaa ardayo inaad xisaabisaan badka labada koorood badka koortan iyo badka koortan mid walba A iyo B diina waa lagu siiyay joogiina waa lagu siiyay kan joogu waa 14 labadii dhinac midna waa 30 midna waa 4 midda kale kana waa la mid kan dhinacna waa 6 dhinacna waa 50 joogiina waa 20 casharkeena saddexaad waxaynu ku baranaynaa badka xuduudaha xuduud waxa la yiraahdaa inta u dhaxaysa laba meelood tusaale ahaan guriga aad gashaa waxa laga yaabaa inuu dayr leeyahay gurigana in laga dhex dhiso dayrka marka badka xuduudka markaynu leenahay wuxuu noqon karaa badka banaanka u dhaxeeya dayrka iyo guriga tusaale labaad oo nolosha la xiriira matalan hadii baad beer haysato beerta aad soo oodo inta beerta aad qodo iyo ijaarka beerta banaanka u dhaxeeya la oranayaa xuduudka tusaale saddexaad qolka aad seexato inta gogashu taalo iyo inta banaan markaan doonayno inaynu soo saarno qolka badka uma ka jaraynaa qolka gogasha aad dhigto hadba inta ay noqoto marka badka xuduudka markaan soo saarayno badka shaxanka dibadda mar walba ka jari badka shaxanka gudaha imika waxa inoo muuqda laba leydi isku dhex jira markaan doonay inta qalinku marsan yahay ama xardhan inaan badkeeda soo saaro waxaan oranayaa badka dibadda badka shaxanka dibadda oo laga jaray badka gudaha badka shaxanka dibadda waa 19 lagu dhuftay 13 ilaa leydiga waxa lagu helaa dharka lagu dhuftay balace 19 baan 13 ku dhufan waxaynu ka jaraynaa badka leydiga gudaha oo ah 15 lagu dhuftay 9 teedna waxay noo noqon 13 markaan 19 ku dhufto 247 sentimitir laba jibaaran waxaynu ka jaraynaa 15 9 ku dhufo 135 markaynu labada kala jarno jawaabteenu waxa weeyaan 112 sentimitir laba jibaaran layliga casharkeena saddexaad oo ah badka xuduudaha waxa ardayo laga doonayaa inta haraysan ama xardhan ayaa badkeeda laga doonayaa sida tusaalaheena ayaa soo saari badka leydiga dibadda badka leydiga gudahana waad soo saari tabeedna waad kala jari doontaa halka waxa inoogu casharkeeni maanta intaynu cashar lamid ah ka soo noqonayno waxaan ku dhaafayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakatuh